waxaa muhiim ah saaxiib in asla fiirna saaxiib sabrad ugu saameynta badnaa bastarad ugu saameynta badnaa ee maanta ciid la soo bastagriyay bastar waxaa jir saaxiib ka duwanaa saaxiib bastarada kale ee dad soo bastagreen bastar waxaa jir saaxiib unique ah oo khaas ah macnaha oo markaasi feeling lagu dareemay brada saadarte marka bastarada jacayl in asla fiirin waayo ciida saaxiib qof meel ku ciida saa hor ku sheeg saadarte marka raggan bastarada soo dhigeen huwaal waa bastar saaxiib khaas ah brada waa bastar oo dareen gooni wata sidaa darteed marka bastarada ugu saameynta badnaa ugu hadal haynta badnaa ugu qiimaha badnaa ee la soo dhigay ayaan isla eegaynaa kow bastar ugu hore waa Cabdirabbi saa taqaaniin Cabdirabbi waa macnaha ragga dhiirigelinta dhalinyarada oo dhanka diinta barnaamijyada dhalinyarada sidaa darteed marka Cabdirabbi wuxuu soo gudbiyay saaxiib sawir aad u qurux badan brad maalinta ciida asigoo la qaadanaya saaxiib dad markaasi oo danyar ah asoo la qaadanayo habeen u badan halka ay farxadda al tagay saaxiib meelaha ugu qurux badnaa ugu qaalisanaa balse asiga farxadiisu waxay noqotay inuu ka farxiyo qof markaasi danyar ah saa darteed marka Cabdirabbi sawirkan uu soo dhigay maalinta ciida sawir oo markaasi feeling gaar wata oo markaasi qiimo gooni leh poster labaad waa madaxweynihii hore dalka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo dhigay saaxiib poster dadka uu la qabsanaya saaxiib maalinta ciida munaasabada maalinta ciida waa maalin farxad ee ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta muslim ah farxad gooni u leeyahay saa darteed marka wuxuu soo wadaagay saaxiib poster balse posterkan ayaa noqday poster uu saameyd badan uu hadal badan markii la barbar dhigay posterka madaxweyne hadda Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi gaaray isku waqti markii ahaayeen 16,000 kuwaas like siisay halka kan madaxweynihii hore dalka ay like siisay 101,000 qof rag badan ayaa comment ka soo wada dhibteen oo gaaray 3,000 waxaana commentigaas reaction ka soo bixiyay rag caan ah oo haysta million sida Maxamed Bakaylo iyo rag badan sawirkan sababta uu soo qaaday waa sawir ku dareensiina saaxiib shacabka Soomaaliyeed hadii marba ku taageeran William ma dhicisid saa darteed marka sawir aan xataa dareen gooni u beeray oo jeclaysi saaxiib maanta in aad mar wax ku soo doosaa ay noqotay taageeriye qayb kamid ah waayo dadka Soomaaliyeed marka ku wataan saaxiib waxa ku wata saaxiib dhiig kuma wata saaxiib dad oo macnaha markaasi sheeka ah kuma wata saaxiib dad oo danaystayaal ah waxa ku wata saaxiib dad dhiig ah sawir kala saameynta wato oo asdhigi kar sawirada ugu saameynta badnaa ugu qurux badnaa ee maanta ciida saaxiib la soo dhigay ayaa waxa ah dayax dalnoosha iyo gabadhiisa aad ku yar quruxda badan sawir ay soo galeen runtii horta sawirkan waxa ka muuqda oo saameyn ku yeelana waxay tahay sawirku waa sawir farxad brad asigoo dhol cadeynay iyo gabadhiisa dhol cadeynaysa asigoo dhar black wato gabadhiisa dhar black wato sawir macnaha aad u qurux badan soo jiidashana leh hubaal wuxuu ka mid yahay sawirada ugu qurux badan ee maanta ciid saaxiib dadka la soo bastagriyay saa darteed marka wuxuu ku soo qoray ciid mubaarak waa sawir macnaha special ah asigoo curdiis ah adinsa gabar sita waa ninka ragga wuxuu aad u jecel yahay saaxiib gabdhaha saa darteed marka gabadhiisa ayadoo si hadana curdiisii noqotay marka waxa taasa keenay marka farxad u badan inuu ayada la qaato saa darteed marka sawirkan waxaan dhihi karaa wuxuu ka mid yahay saaxiib sawirada watay feelinka gaarka ah oo maanta ciid la soo bastagriyay qabiir madaxu wuxuu soo dhigay saaxiib sawir aan inaba caadihin aad u qurux badan khayr gooni leh waa sawir farxadiis la qaadana qofka uu qiimaha badnaa ee xaqiisa dunida waxa ka muuqda sawirka hooyadiisa saa darteed marka hooyadiisa ayuu sawir farxad leh oo maanta ciid la qaatay asxaabtiina soo bastagriyay sawirkan waqtigiisa soo qaadan waxa ka shan ku bixisay 5,800 qof saa darteed marka waa sawir macnaha feeling gaar wata oo aad u qiimo badan khayran leh bastarada uu qurux badnaa uu saameynta badnaa ee maanta ciid la soo bastagriyay ayuu ka mid yahay sababtoo ah maamo waa naxariistii farxadii ayuu sawir la soo galay sidaas oo uu mid noqday bastarada uu saameynta badnaa maalinta ciid la soo bastagriyay